ليس الجمال بأسباب تزينون إن الجمال جمال العقل والأدب ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ciwaankeena wuxuu ku saabsan yahay alcaqd. sidaan horay aan ka hadalnay waxay ahayd heshiiska dhex marayo mujtamac mise bulsho ay u xil saaranayaan qaar ka mid ah awoodaha ayna wakiil ay ka yihiin mujtamaca mise bulshada intiisa kale aynu ku magacaabnay qaanuun dastuuri aynu niri waa halbeeg. haatan waxaan rabnaa si wadajir ah inaan u gudagalno heshiiska dhex maraya laba qof dhexdooda. kaasi waxaynu ku magacaabnay alcaqd ama heshiis. alcaqdiga muxuu ku tacriifinayaa fiqiga islaamka, muxuu ku qeexayaa alqaanuunka. kelimada luqa ahaan haddaan u guda galno kelimat alcaqd sida ay ku timid yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud ee aayaddu tilmaamtay, waa luqad ahaan waa laba daraf inaan laba dhinac isku keeno oo aan isku xiro. heshiiskaas dhex maraya labada dhinac mise labada daraf ay fiqil islaami uu ku magacaabay الربط بين طرفين oo iijaabkii iyo qubuulkii uu ka hadlay fiqil alislaami. qaanuunka wuxuu ku magacaabay huwa tawfiiq iraadatayn, laba doonitaan mise in ka badan oo qaanuunka uu yiri isku xir ayaa dhex marayo oo tawaafuq iyo ishaleeshiin ayaa dhex marayo. ishaleeshiintaas ha ahaato shay ay bedelayaan, shay aanan jirin ay aasaasayaan, tabaadul dhexdooda ee uu dhex marayo, mise dalabo ficlin aw imtinaaci can ilficl, ha noqoto ficil la doonaya in la sameeyo mise ficil la doonaya in laga istaago. kabacdina waxaa la doonayaa inaan dul istaagno heshiisku maxaa arkaan u noqonayo oo heshiiska muxuu ka kooban yahay. waxaan niri laba dhinac oo laba daraf mise in ka badan ayuu heshiisku dhex maraya, hadday afraad tahay mise ashkhaas ay tahay, ha ahaado shaqs alطabiici mise ha ahaado shaqs alictibaari. kullan laba dhinac ayuu marayaa, waxaana dhex marayo mucaamalaad iyo tasarufaad ayaa dhex marayo. mucaamalaadkaas iyo tasarufaadkaas qofna waa soo jeedinayaa, dhinacna wuu soo jeedinayaa, dhinacna wuu aqbalayaa. waxaa kulminaya hal fadhi ayaa kulminayo mise meelo kala fog ayay joogaan. shardiga koowaad oo la doonayo waa inaan dhinacan awood ma u leeyahay tasarufaadka iyo mucaamalaadka, awood ma u leeyahay. dhinacii kalena intii oo kale ayaa laga doonayaa, laanna waxaynu ka fiirinaynaa wax qofka isaga naf ahaantiisa quseeyo mise wax xiriir la leh. waa midka aynu ku magacaabnay qofkan ahal ma u leeyahay tasarufkan iyo mucaamaladan uu samaynayo. sharciga iyo qaanuunku ma u siinayaa axaqiya, ma u siinayaa inuu tasarufkaas iyo mucaamalaadkaas sameeyo. waxaan ka fiirinaynaa qofka qaangaar ma yahay, waa midka koowaad ayaa laga fiirinayaa. qofkan tasarufkiisa ma la oran karaa tasaruf saxiix ah? waa qofku waxaa dhici karto inuu qaangaar yahay laakiin maskax ahaan iyo miyir ahaan iyo garasho ahaan ma jirto.
markaas bedelkiisa waxaa loo baahan yahay si mucaamalaadkii iyo tasarufkii uu u socdo qof mas-uul ka ah mise weli uu cayimayo maxkamad ay cayimayso iyo cidda mas-uulka ka ah midda labaad darafka kalena intii oo kale ayaa laga doonayaa oo tasarufkiisii ma yahay tasaruf saxiix ah hadduu qofka ictibaari uu yahay shakhsi ictibaari misala shirkad ayaa tasaruf samaynayso mucaamalaad ayay samaynaysaa shirkaddaas shirkad diiwaan gashan oo leh shakhsiyad qaanuuni iyo mid sharciyeed ma tahay marka daad ahaanteeda shaygan daad ahaantiisa iyo tasarufaadka uu samaynayo ayaan marka hore ka fiirinaynaa midda labaad markaan ka soo gudubno tasarufkaas ma yahay tasaruf uu aqbalayo sharciga tasaruf uu qaanuunka aqbalayo ma yahay kabacdi waxaan usoo gudagalaynaa qaybta labaad oo ka fadhiga labada dhinac dhex maray waa ka soo hadalnay ahliyat alwujuub wa ahliyat aladaa laana qofka shakhsiga dabiiciga markuu u dhasho ahliyad ayuu leeyahay laakiin ahliyaddaas way la soconaysaa ilaa uu qofkaas ka dhinto waa ahliyati alwujuub oo ka kaa'in alxay oo qof nool oo dhashay wuxuu yeelanayaa axaqiya oo ka insaan ahaan ayuu yeelanayaa midda anagana qusayso waa midda ku shaqa leh ahliyat aladaa oo tasaruf qofkan ma leeyahay naf ahaantiisa mise daad ahaantiisa tasaruf ma leeyahay taas waa midka aynu ka fiirinayno labada daraf hadduu yahay shakhsi dabiici tasarufkii tasaruf oo qirayo oo ahliyaddii gudashada ma leeyahay haddii uu yahay shakhsi ictibaarna ahliyadii gudashada uu sharciga ee qaanuunka uu siiyey ma leeyahay taas markaan ka soo gudubno waxaan u soo gudagalaynaa tasarufkii xigay waa maxay laana labada daraf waa inuu kulanka dhexdhaca kulankaas kulan xaqiiqi oo labadooda isku yimaadeen miya mise waa midaan xaqiiqi ahayn oo xukmi ah waa maxay sharciga iyo qaanuunka ayaa siiyey tasarufkaas xukun ahaan ayaa la siiyey laakiin xaqiiqa ahaan iskuma aysan kulmin labadii ruux labaduba waxaa inta ay socoto tasarufkaas iyo wada hadalkaas intuu socdo ayaa waxaan leenahay waxaa jiro wax lagu magacaabo majlis alcaqdi oo ah kalfadhiga labada daraf ay isku xirmayo heshiiska labada daraf heshiiskaas isku xirankiisa waa inuu wax soo kala dhexgeli ayadoo wada hadalkii socdo ayaa aniga waxaan iska galay mise qofkii labada daraf mid ka mid ah ayaa wuxuu iska galay mowduuc kale aan meesha oolin waxaan leenahay majliskaas aynu ku magacaabnay majliskii mise koolihii heshiiska waa burburay laanna waxaan shaqo ku lahayn ayaa la galay walidaalika waa inuu yahay kulankaas barkulankaas inuu yahay mid quseeyo tasarufkaas iyo mucaamalaadkii layskugu yimid mucaamalaadkina waxaan u kala qaadaynaa al-iijaab waalqubuul soo jeedin iyo aqbalitaan daraf walba wuxuu noqon karaa soo jeedin waxbaan iibinaa mise waxbaan gadanaya iibiyaha hadduu asaga soo jeediyo waxaan leenahay waa soo jeediye hadduu kan kale uu soo jeediyo aan yidhaahdo shaygan wax ma iga gadaysaa lacag qadarkaas ah qofkaas ayaa wuxuu noqonayaa
soo jeediyaha aynu ku magacaabnay al-iijaab dhinacii kale ninkii wax iska gadaya hadduu yidhaahdo lacagtii aa sheegtay iyo wixii aan wax ku kala bedelaynay waan aqbalay aqbalitaankaas wuu dhacay waxaan ka hadlaynaa si guud si aan u fahanno war heshiis muxuu uu yahay kow in la helo daraf leh tasarufaad sharci iyo qaanuun ah uu siinaya awood inuu wax ku tasarufo labo darafka labaad inuu asaga intii oo kale uu yeesho midda saddexaad in la helo barkulan oo xaqiiqi ah mise xukun ahaan in la helo muddada kulankaas uu soconayo waa inaan lagu mashquulin wax kale oo ka baxshan heshiiska ugu kulmay waxaan u soo gelaynaa doonitaan waa inay jiraan doonitaan labada daraf oo aynu ku magacaabnay al-iraada mise arida qofku waa inuu doonitaan inuu leeyahay doonitaankaas fuqahaad islaam laba ra'yi ayay keeneen kuwo waxay yidhahdeen shardi waxa ah niyad oo qofkan inuu qasdi iyo niyad inuu la yimaado fuqahadana qaar waxay aadeen fuqahaa islaam qaarna waxay aadeen niyada ictibaar ma laha mithaal yar haddaan ka bixinno qaanuun wadciga intaana mithaalka aan gudagelin iraada الظاهرة وإرادة باطنة إرادة موقتة إرادة قرصون أي قانون كوضعك وكلا بحلاتيني أنكرصون وأمري أنكرو لبا رأي أي وكلا بحن سيد الفقه الإسلامي لبا رأي وكلا بحن سي أن أفهنه وحالي في مثال يتضح الحال مثال يرهدان كبحيو labadooda aan soo koobo waxaa mithaal u soo qaadanaynaa waxaa la iibinayaa wax canab oo kale ayaa la iibinaya canab ayaa ani kaa iibsaday qof kaa iibsaday mise qofka kalena waa baaci oo mushtari oo iibiye i gatow fiqiga islaamiga qayb waxay leeyihiin qofkan canabka kaa gatay ma weydiinayno niyadiisa oo shardi maaha intaan lacag bixiyey intaanoo kiilo canab ayaa isiisay waa ku kala baxnay qaar waxay leeyihiin maya waa in niyadda ayaa soo gelaysa oo qaanuunku leeyahay iraada albaatiniin qofkan waxa caddaatay in calamkaas uu isticmaalaya khamri oo maandooriye ayuu u isticmaalaya sidaa daraaddeed niyadiisa ayay soo geliyeen mucaamalaadka sidaa daraaddeed tasarufkaas oo beeca iyo mubaadalada dhacday iyo mucaamaladaas dhacday waxay noqonaysaa baatil ayay noqonaysaa walidaalika waxaan fahanay in laba daraf la helo labadaas daraf in ay shuruud ay leeyihiin lagu aqbali karo tasarufkooda iyo mucaamalaadka ay samaynayaan midda labaad waxaa la doonayaa in la helo alrida aw iraada oo sultaan iraada wax lagu magacaabay oo aan kala baxinay iraada zaahira wa iraada baatina sida uu ku carifay alqaanuun wadci fiqh alislaami alrida iyo ikhtiyaar ayay kala qaadeen jamhuur ulculamaa waxay yiraahdeen rida wa ikhtiyaar oo doolintaanka iyo raali ahaanshaha waa laba kelimo oo isku mid ah oo mutaraadif ah abu xaniifa wuu kala qaaday wuxuu yidhi ma ahan rida wa ikhtiyaar ma ahan wuu kala qaaday oo wuxuu soo geliyay atharka ayuu soo geliyey sidaa daraaddeed mithaalkii ayaynu sheegnay
oo ku saabsanaa iraada daahira wa iraada baatina iyo niyadda ma la qaadan karaa mise niyadda ma soo gelayso mawduuca ku saabsan alrida waxaa ka farcamayo cuyuub rida ayaa ka farcamaysa insha allah ayadana waxaan ka dhigaynaa kelimad maalinteeda waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waa in la helaa heshiiskan labada daraf meel uu ku dhacayo meeshaasna shuruud ayay leedahay waa maxay in ay sharciyan iyo qaanuuniyan qaanuun ahaan inay tahay mid sharcigu uu ogol yahay waxaan aan kala bedelanayno sharciga hadduusan ahayn waxay la mid tahay waxaana jirin qof gaday wuxuusan lahayn qof gaday wuxuusan gacanta ku hayn qof gaday sida daraaddeed intuba ma bannaano sharci ahaan in lagu macaamalo oo heshiiska uu ku dhaco sida daraaddeed saddex nuqaad ayaan ku soo gabagabaynaynaa kelimadeena kow in aan la helo laba daraf in la helo raanisho ahaan in la helo heshiiska meel uu ku dhacayo aynu ku magacaabnay maxal taasna waxay u baahantay niqaad fara badan in aan dul istaagno laanna arkaan iyo shuruud aynu tirinayno ayaynu ka hadlaynaa mid walba kanana waxaan u talagalnay horodhac oo arrinkaas heshiis wuxuu uu yahay ليس الجمال بأسباب تزينونه إن الجمال جمال العقل والعدل